wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Ali Maxamed Oran Cadde ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay magaalada Gabiley kulamo kula qaateen ehelada mid kamid ah saraakiishii ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland oo dhawaan lagu dilay deegaanka Qorolugud ee gobolka Togdheer waxaanu xusay wasiirku in safar ay ugu baxayaan magaalada Boorame ay taasi ugu tagayaan ehelada marxuumka kale shaqooyinka labada isdaba joog ah ee ka dhacay shalay iyo maalintii dhaweyto runtii aan leeyahay halkaan uga soo jeedin dadka wixii ku dhintay Ilaahay naxariisna Allah siiyo wixii ku dhaawacmay Ilaahay muxuu ahaayay haws fududeeyo caafimaad iyo fayaqab insha Allah biidnillaahi kariim arinta waan u tagnay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan Ilaahay uga mahadnaqayaa sida quruxda badan ee u soo dhamaatay waxaan halkaan uga jeedinayaa mahad balaaran madax dhaqameedka iyo bulshada reer Gabiley oo runtii sidii aan ka filaynay nooga aqbalay waxyaabihii aan ula tagnay nabadda la ilaaliyo si weyn way noola aqbaleen anagii waftigii anagoo raalli baan ka soo noqonay runtiina waxa weeyaan dhaqanka reer Soomaaliland ay leedahay ay ka mid tahay marka waxaad kaadaan inaynu hareeraha ka fadhiisano waxaan leenahay uqaal waxaan leenahay salaadiin waxaan leenahay dad badan oo wax garada iyo dawlad isku xiran baynu leenahay sida awgeed waxaan noo hirgashay in arintaas aanu soo afjarno isla markaan halkan aan jecelahay anigoo ku hadlaya afka gudida in aan tacsi u diro labadii marxuumay saraakiisha ah ee ku dhintay Qorolugud oo runtii aan maantana jecelahay anigii wafdiguba inaan tagno Boorame si iyada lafteeda aan qoyskii uu ka marxuumkii kale uu ka dhintay sarkaalka aanu tacsi ugu tagno si aanu gacanta u soo marino iyo si aan uga xunahayba inaan Boorame ugu tagno iyagana muxuu ahaay runtii waana arin aad iyo aad aan jecelahay in mar walba dadkeenu hadii wax dhacaan la wada wadaago dhibaatada iyo xumaanta labadaba wasiirka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa kale oo uu sheegay inay u qorsheysan tahay in la helo qalabka loo adeegsado mudaharaadyada si ay u yaraadaan khasaaraha ka dhasha mudaharaadkeenu uu qalloocdaa wuxuu isu bedelaa mudaharaad gacan ka hadala arintaas oo aan aad uga xumahay taas waxay keentay had iyo jeer dhibaatooyin fara badan oo bulshada iyo booliiskaba soo gaadha waana dhibaatooyin badan hore u dhaceen marka xataa in mudaharaadada aynu u tababarano booliiskeenana aynu muxuu ahaay u helo qalabka caalamka laga isticmaalo ee ah qalabkan lagaga hortago mudaharaadada oo runtii aan wadamo badan oo dunida ay weydiinay laakiin ilaa imka wali waanu wadnaa waa daba taaganahay waxna waanu helay wixii kalena aan ku filanay way naga dhiman yihiin Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa